السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلهي مهدي دي أن سكسو لابني مرة بعدي مرة صدحات مرة أفراد مرة بدن أصحابي ما أنت وحان دين هيا أرين آد حساسو آد وهذا الهين بدن بريان كتاقنيت بان روا إن قنت إيقناند كمانت إن أن إذن لبداغو هدي على إدمو ماركو ugu horeysa waxaan wataa codsi haddii aad channelka cusub tahay waxaan kaa rabaa subscribe iyo like iyo share fara badan oon la soo koobi karin baan kaa codsanayaa aad badan mahadsantihiin asxaabay maanta waxaan idiin wadaa arrinta beryahanba inkastoo aan jeclaa in lasoo afjiro balse maanta waa lasoo afjiray sheekada maanta way soo xirtay halka aad iga daawanaysaan waa Cashakin channel waxaad ka arki doontaan maxay ahayto informationkii oo complete ah oo buuxa baad ka arkaysaan maanta channelkayga haddii alla idmo idinkana kulley wixii reactionkiina waa welcome anytime wixii aad la wadaagaysaan waa ku mahadsantihiin in soo wadaaga diyaar baan idiin ahay inaan idinka maxay ahayto jaahil bixiyo wixii inaad ogeyn inaan idiin soo sheego waxa aan ka warqabo sida ilaahay la ogyahay asxaabay sida aad ogeydeen gabadhii walaasheen ahayd waxay ka ambabaxday magaalada Hargeysa shalay bay ambabaxday way ku laabatay halkii ay ka timid iyo Mareykanka waxaa soo tiray hadallo markay gabadhi baxday safarkeedu oo ay ogaadeen baa waxaa la sameeyay maamureyn fara badan balse waxaa ilaahay hadii ah hadalladaas la sameeyay falcelintoodii oo cad oo bayaan ah oo la qarinayn oo cidina geed ku soo gambareen baan rabaa inaad ila daawataan maanta bal odayaashii ka socday beesha Samaroon Safiito Sumo go'aanka ay gaareen iyo waxa ay la kulmeen iyo sheekada siday ahayd bal ila daawo adigoo daawada ah gabadhaas maankeedii iyo maalkii foorxun oo Soomaali weli ka dhexdhicin ayaa lagu sameeyay oori la qabo oo kamarada loogu xidho oo cawdadeedii banaanka la dhigo weli caalamka lagu maaray islaamnimadana lagu maaray Soomaalina lagu maaray aan ka sheegayaa maasha ka jiray baa u qabanay dhacdadii gabadhii Safiito Sumo ku dhacday oo gilgishay Soomaali idilkeedba gabadhaasi beesha ay ka dhalatay baan anagoo ah Bahabar Cabdalla Makaayila dhacdadaasi markay dhacday booramaan joognay waan aragnay waan soo soconnay Hargeysa reerkii ninka oo ka dhashay ayaa ninkii soo dhaweeya waa ciidagale ayuu si ciidagale weeyii waa gudoomiyihii waxaan helay Safiito Sumo ku dhacday oo gilgishay Soomaali idilkeedba gabadhaasi beesha ay ka dhalatay baan anagoo ah Bahabar Cabdalla Makaayila dhacdadaasi markay dhacday booramaan joognay waan aragnay waan soo soconnay Hargeysa reerkii ninka oo ka dhashay ayaa ninkii soo dhaweeya waa ciidagale ayuu si ciidagale weeyii waa gudoomiyihii waxaan helay Garxajis ninka Cabdigule leeyahay aqladii wuxuu noo keenay Garxajis oo dhan waa wada hadalay gabadhaas maankeedii iyo maalkeedii waa gabadhaas maankeedii iyo maalkeedii waa isku daray foorxun oo Soomaali weli ka dhexdhicin ayaa lagu sameeyay oori la qabo oo kamarada loogu xidho oo cawdadeedii banaanka la dhigo weli caalamka lagu maaray islaamnimadana lagu maaray Soomaalina lagu maaray ciidagaas laga arkay arrintii caynkaas ahayd waan ka wada hadalay waxaan idhi gabadhaas laba qodob baan soo jeedin waxaan idhi gabadhaas halkaad ka ceebaysan kaaleen ka raalligeliya magteediina halkaas soo dhiga waxay noogu jawaabeen inankayagu wuxuu na yidhi oo duqaydii dhanida ciidagale waxaa ma qabo buu nagu yidhi aan isku noqon walaalahay oo ballanii qabta way nala meelaystay saddex khamiistii shalayna
kolkay mataqaanaa ay arrinkii kiyaa soo dhuuxeen inay waxaan ay qabaan ogaadeen hawada ka baxeen oo waa la jabay way jareen sidaa darteed annagoo ah beeshii duqeydii cabdalla makaahila waxaan garanay in arrintanba ka yar ay mataqaanaa odayadu arrintan ka dambeeyaan oo waxaan uu sameeyey dhaqankan xun inay iyagu raacsan yihiinba oo u dhan yihiinba ayaan mataqaanaa ogaanay sidaa darteed gabadha mataqaanaa safiya tusmo inanka waxaa sameeyey iyo hablaha ciidagalena farxi maayaan inanta tusmo iyo hablaha makaahile la dhashayna ooy maayaan siday kuwaasi u ooyeen hablaha makaahile iyo gabadha tusmo ayay hablaha ciidagalay iyo inanka herdimo u ooyi doonaan haddii mataqaanaa si soomaali maanta way arrintan way wada gaadhay haddii sida ugu dhaqsiyaha badan arrintan loo gaari waayana dhib weyn baa ka dambeyn bismillaahi raxmaani raxiim allahuma salli calaa maxamed waa aniga oo aaqil baba cabdallah kuwa qarabduwa mataqaanaa odayaasha ugu waaweyn kamida do allaa weyn waxaan ka warbixinayaa badcadii ku dhacday gabadha soomaaliyeed babar cabdallo tusmo ilaa yidhaahdo taasoo baryahanna ku jira arrinkeeda markuu fagaaxaddaa iyo ceebtaa wiilyaha eeda islaamnimada iyo dhaqanka soomaalida waxa ku jira ku aragnay waxaan raadsanay ciddii wax ka dambaysa waxay noqotay nin qabay oo ciidagala ninkii iyo jilibkoodii iyo annagoo babar cabdallah waxaan isku gabnay hargeysa weydii waxay fadhiisanay guri waxaa nidhay mataqaanaa wadahorta garta gur baa ka horeysa waxay yidhahdaan gur maanta ku wada hadal waan ka yeelnay waan wada hadalnay waxay yidhaahdeen nimanow mataqaanaa balan na siiya khamiisnima na siiya waan ka yeelnay khamiis shalay bay ahayd goora ka soo kactinay halkii baan nidhay waxay ila tahay in aad wada daawateen وانا والو سي ورياض ودريمونا هايدينا وسي ودريمونا ورياض وعد نقو سمينا سي ودريمونا ورياض نعلا ارقينيو ماشا كايماتن كيالا وعد نقو سمينا سي we feel it we fucking feel it ورياض hadalkii odayaashii ka socday beesha samaroon ee Safiya Tusmo oo idiin soo cadeeyay arrinta sida ay u dhacday waxaan u malaynayaa asxaabay in ay intaas idinku filan tahay haddii kale anigu hadda waxaa layiri waxaan sheego maba garanayo markaasoo kale tala fara ka baxday odayaashii waad kaasaa waa daawateen waxay idiin sheegeen cododkoodii in gabadha la yidhaahdo Safiya la shirqoolay in gabadha la yidhaahdo Safiya Tusmo tacaddi lagu sameeyey oy isugu tageen dad fara badan oo ku jira xataa fanaaniin wariyayaal samafalayaal dad badan in gabadhaas la isugu tagay oo arrinta Safiya Tusmo ay ka weyneed ayada iyo cajuune ay gacmo kale ay meesha ku jiraan baa inoo caddaatay marka walaalayaalow Soomaali haddaan nahay ilaahay ha laga baqo hal iska daayo dadka magaca bulshada kule oo la rabo markasta in la magac dilo waxyaalo inta la isku soo abaabulo lagu rabo in lagu magac dilo qofkaasi hala iska daayo hala iska daayo magac dilka gabadhaas in la magac dilo waa la shirqool bay ahayd wuxuu guur maba ahaynba waaba shirqool wax dad badan ay soo abaabuleen oo la isu keenay dallado fara badan oo sidaa ah oo u taxan silsilad bay ahayd arrintaas oo shirqool ah laakiin waa ilaahay mahadii maanta haddii ilaahay ka soo kaxeeyey meesha aad ku dhibtooto waa laga haajira iyadoo nabad ilmeed ilaahay ha u geeyay gabadhaas u soo duceeya way ka soo baxday godka ay ku dhacday alxamdulilah way ka soo baxday maanta maadaama ay ku noqoto waddanka ay ka timid iyo Mareykanka arrintaasuna waa idin caddahay in gabadhaas la shirqoolay ay shirqool ahayd shirqoolkii laakiin waa lasoo afmeeray hadda uu soo dhammaaday waa bes wax loogu noqonayo male dadkaas iyo waxay kala helaan
isku degaanka ah bay leedahay ayaga u taallaa annaga nooma taalo balse waxaa noo caddaatay in arrinta safiya lagu sameeyey ay ahayd shirqool la ballaangareeyey lasoo qorsheeyey ahayd baacad ma fahanteen marka walaalayaalow anigu barnaamijkii maanta waxaan kusoo gabagabaynayaa caddeymahaas aan soo helay inaan idinla wadaago waa kaasaa waan idinla wadaagay idinkana kulley dee caqligu wixii caqlila way fahmi karaan wixii wax arkana way kulley waa daawanayaan videoga dadka aan maxay ahayd odayaasha ay soo dhigeen marka walaalayaalow gabadhaas miskiinta ah ha laga haro anigu maanta haddii alla idmo videogan baan kusoo gabagabaynayaa arrinta safiya tusmo oon kusoo afjaray waa soo afjaray markaan because waxaan arkay wax la afjari karo arrinta meeshay u socoto dhan baan ogaaday marka waxay ahayd gabadhaas ceeb male waa ceeb ka saliin waa marwo sharaf leh waa gabadh Soomaaliyeed waa gabadh bulshada magac ku leh cid magaceeda baabi'in kartana ma jirto wayna ka guulaysatay cayayaanka dhan waa la buufiyey saa ula socda marka haddii aad ku cusub tahay janaalka waxaan ku xasuusinayaa mar labaad subscribe like share iguna imaw hadalla xaqiiqo ah hadalla xaqiiqo oo run ah oo la taaban karo ka daawo janalka caashkiin aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalinta hadii wacnaato